عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود وهذا معلم عصب فيديو عصب ما تعرفنا إن قصص صميمة يعني هالفيديو قرب بدن مسجد وين وطن يوغندا يا مسجد كواد يقوين إست أفريقيا يا مسجد كأفراد يولي بيقوين قارة أفريقيا عرفنا قصص صميمة فيديو قرب بدن تاريخ لسه بلو ولا دمار واحد قصة كسابسن سود وهذا إن شاء الله هذا وضحنا نمرير صاحب السيدة وجدان هذا وحسوا قادني ماشي أو مساجد كوينة ولي هذا وحكوا حجنا قيبتي الحسياشة قيبتهم وقيبتي أكرها عسي قفقة قتصير ربا مساجد كملا هذا تاريخ دي سو حد مكسو جيسين ربا ولقصر عاقو ماشي لقفقة كاك حيني ويان شو ذكر ماشي العقد كبيحنا سيد العقد ما حب حنا سا يعني العقد ميلا جالس $1 يبرد $1.2 أو شنكنا العقد وضن كنا يوغندا بحنا سا يعني أنا كنا أدري بحوش شيء وحيالها الصمير رمينا فيديو يوتيوب رمنا كركض ورمنا مساجك عادي واحد دوكيومنتري أنا هين دوكيومنتري أنا أو عادي فيديو يرى أو حاجة أنا كصمير رمنا يا وشرحينا عن حي الله صدق قف وحيالها دنا وش شيء كا let's go هذا سيدا وجدنا وحكوسي صعنا إن ومساجدكي أو قبل راسنا لصعطة يا حرطة إني نساقل تستوقيبها مساجك يولي بس هذا حق لنا ماشي أو منارة هايت منارة waa meesha qaybta ugu dheer waxay ka kooban tahay ilaa 64 mitir shacab marin galiya walawadi jirin ugu hori soo dhaafno daqiiqadiiba anako intuu gaadhinba ولي لو دحدي مرنا ولي لو دحدي مرنا ما دوي سواء قيبير او قيب سويك قيبتي دحك دم بيسويا لكن قيبتي دheerad oo socona hada tigina waxa uu jeedaan dharka halka waa gudaha jaranjarada 64 mitir ah hada meesh soo gaarnay meesha ugu sareysa ayaga magaalada sida ugu qurux badan ee arkaysan waa Kampala oo laga sawiray 64 mitir. Fatima, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Now you are going to show us what? I'm going to show you the 7 hills of Kampala right from the top of the tower at Gaddafi National Mosque. Done. Originally, Kampala was built on 7 hills, and right where we are, it's the center of Kampala. So this is called Old Kampala Hill, and this is where development of Kampala started from. As you can see, all the main roads, they all look in this direction. There is that building painted green and yellow, and behind it is a Hindu temple with 3 towers. From the Hindu temple, moving up to the Pearl of Africa Hotel, the white tall building, that is hill number 2 called because it's where most of the so behind the hotel where the 2 long antennas are, that is called Kololo Hill. We also call it the Beverly Hills because it's where most of the richest people stay and most embassies are there. And then we have the famous taxi station. When you look in the direction of the green and yellow building, on the left where there are so many cars parked, that is the old taxi park. Then down there where there is a yellow billboard is the new taxi park, and that side is another one called Kisenyi Taxi Park. There is a football stadium under reconstruction. That one is called Nakifo Stadium. It used to be the national stadium, but now we have a big one called Mandela National Stadium when moving along Ginger Road. After reconstructing that, it will be for the local clubs. And on the right of the stadium is a market with the green roofs. That market is called Owino Market. It's the biggest market here in Kampala,
majorly a second-hand market, but there is also fresh food. It's divided into two. One part sells fresh food and the other part sells second-hand clothes. Then hill number 4 is called Mango Hill, where we find the King's Palace. When you look over the hill, there is a yellow building in the green park. That's the King's Palace. And hill number 5 is called Lubaga Hill, where we find the St. Mary's Cathedral for the Catholics. The building up on the hill with the 2 towers was built in 1914, finished in 1925. Then hill number 6 is called Namirembe Hill, where we find the St. Paul's Cathedral for the Anglicans. So that one was built in 1915, completed in 1919. Finally, our hill number 7 is called Makerele Hill, where we find the oldest university in East Africa. The hill with so many trees all over it, that whole big forest is the university, and it is now celebrating 100 years. sida ujeedaan hadda masaajidka waxaa ka duubanaa kor waa qofkii aan arag masaajidka xaggiisa sare sida uu egyahay weliba anaga waxaa duubanaa xilli rooban oo roob ku da-ay. masjidkaymu soo booqo wax ka ogow taariikhdiisa. hadda waxaa la iska bixinaya meesha masaajidka gudihiisa waa rabnaa inaan gallo marka waxaa iska saaranaa kabaha way ogtihiin dee innaka muslimiin markas masaajidka kabaha waa laga bixiya. asalaamu calaykum. gabadha Faaduma waa gabadha na tusaysa masaajidka ee Ngeesi Absteeriska sare naaradda waxa dhan haddana waxaan siinaysaa masjidka warbixintiisa bilowgiisii ciddii dhistay ciddii fangaraysay sanadkii la aasaasay sanadkii la dhameeyay intii waxaas oo dhan gabadhana siinaysa warbixinta. So this was a foundation that was begun by the late president of Uganda called Idi Amin Dada. When he came to power in 1971, he gave this land to the Muslims, and the foundation began during his regime. But because he didn't have enough fund, it laid on foundation for 30 years. So that's when the late president of Libya, Kanuma Gaddafi, visited Uganda in 2001. The leader of Muslims requested him for the funding of this mosque. You mean the leader of the Muslims, Mufti? The Yes, Mufti? yes. Mufti, then Mufti of now. Yes. So he accepted, went back to his home country, sent the engineers. Then the construction began afresh in 2003, completed in 2006. Now the mosque has 2 floors. This is the upper floor where we are. Then downstairs, there is the ground floor. So the ground floor is the one being used for the 5 daily prayers, and this one is open for the Juma prayers, the Eid celebrations, and wedding ceremonies. So this is the chamber for the men, up the balcony for the women. So the whole of this mosque occupies 25,000 people, all together both up and down. Up and down. Yes, and it's the biggest in East Africa. It was designed using 3 cultures. We have the Arabian culture, the African, and the European culture. When you look at the stained glasses of the windows and the doors, they are the same as the ones in churches. So they represent Europe, and those glasses were imported from Italy. It being that we were colonized by Britain, and this hill was their headquarters, that's why they used the European style. masaajidka dhisayadu ka koobnaa waxaa ka mid ahaa European design. Designka Europeanka waxa weeye daaqadaha camal noocan ah oo kuwa kiniisadaha kale ah. Marka waa halka uu masaajidku ugu yahay kiniisadaha camal oo isku daaqada yihiin. Then we have the wood paneling and the parapet front there to represent the African setting, because our grandparents used to construct houses using wood, and that wood was imported from Democratic Republic of Congo. kamid ahaa sidoo kale designada waxaa kamid ahaa looxyadan ay noo sheegtay oo African designer. looxyadan waxaa laga soo dhoofiyay wadanka Congo baa laga keenay oo dadka wadankan u dhashay ayaa ahaan jiray kuwooda hore kuwa looxyo guriga wax kasta ku dhistaan. looxyadan waa nooc laga keenay wadanka Congo. And then you have the chandeliers and geometric designs on the ceiling to represent Arabian setting.
the chandeliers were imported from Egypt. sidoo kale designada masaajidka waxaa ka mid ahaa carab design waxaa weeye camal sida bahalahan oo kale ay u jeedaan oo kale oo leedharka iyo bahalaha soo baalkeynaya ayaa carab design ka metelaya marka masaajidka saddex qaybood ka kooban yahay wixii kaloo warbixina insha Allah barxadda hore masaajidka aynu ku siinaa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن masaajidka waa in lagu soo saaraa jameeco tabliiqa waa in lagu soo saaraa oo ninkani awal ka yahay insha Allah imsa diyaarta insha Allah fartamo diyaara barakallah qabaltu insha Allah hadana keenna qaadana masaajidka qaybta oo soo dhameynay insha Allah hadda waxa tageynaa xag hoose let's go السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا حرنا إن نسينا وربحنا مساجدك بلو إلا دمان مساجد كان وحدول كسيء مسلمين تودن كيوغادا مدحونيه إيد أمين داد تلذ ودن كهيي كنت سجال بغلطياتني كودي إلا كنت سجال بغلطياتني سجالكي سجايا مسلمين تدول كسيء وقتها قالين إن مسلمين تلاقوا دسوا مساجد بعد مركي مدحونها ودن كيوغادا وسيء مسلمين دول كان مهين وح قرش أو كفن قرية أو كل دسوا مساجد قرش لقوا وكل دسوا كبعد واحد لقيتها جاي إنير أو لقيته كذا كبعد اللي بكون يكودي وحا وطن كي معضي مدحوينها وطن كليبيا معمر القذافي السجايا وحاولت مفتقة وطن كان بحاولت أو قعد صديقين مسلمين تقول لسه مساجد كبعد مدحوينه وطن كوكا قبلي وحكلها بتودن كيسي سجوا ديارين يقصدوا المسلمين وطن كوكو الإسلام مساجد وحول بكون يصدق لي صادري injineero iyo faanka lagu baalkeen lagu dhisay masaajidka dhamaantood soo diray uu soo diray dhismaha wuxuu bilowday 2003 ayaa dhismaha masaajidka wadanka la bilaabay wuxuuna dhamaaday 2006 taas oo la mid ah wuxuu socday 3 sanadood sidoo kale waxaa si caalami ah loo furay habayska iyo markii masaajidka quruxdiisa laga tago 2008 ayaa si official loo furay masaajidka sidoo kale masaajidku wuxuu ka kooban yahay ilaa 10 qaybood qaybta koowaad waxa weeye qaybtan saaranaya sare ee balkonka oo marka masaajidka uu buuxsamo jimcaha iyo maalinta ciida ay dadku ku tukadaan masaajidka wuxuu qaybta sare oo balkonka waxay qaadaa ilaa 3500 qof sidoo kale qaybta kale waxa weeye waa qaybta gudaha xaggaas oo qaada ilaa 15000 qof oo ka kooban qayb dumar oo xagga sare iyo qayb xagga hoose oo qayb rag oo xagga hoose sidoo kale waxaa jirta qayb lagu tukado 5 salaadood ee maalintii saashogna qayb 5 salaadood lagu tukado oo xagga hoose ah oo ilaa qaada ilaa 3000 ilaa 4000 meelaha qaada intaas oo dumar iyo rag ka kooban weeyaan marka masaajidka guud ahaan wuxuu qaadaa inta oo si nadiif ah loogu tukan karo oo ciid ahayn ilaa 25000 oo qof oo ku tukan kara maadaama yaa masjidka ugu weyn East Africa iyo kan afraad ee ugu weyn qaaradda Afrika sidoo kale masaajidku wuxuu ka kooban yahay qayb jaamacad ah oo aad aragtaan jaamacada xaggaas ku yaala iyo qayb college oo dhinacan ku yaala sidoo kale qayb meherada ah oo laga helayo cunto Soomaali local foodka wadanka iyo cunto Soomaalida cuntada cunto sidoo kale masaajidku wuxuu ka kooban yahay qayb weyso oo rag u gaar ah iyo suugaashooda wixii wata oo rag u gaar ah iyo qayb dumarka u gaar ah sidoo kale masaajidku leeyahay sidoo kale masaajidku wuxuu ka kooban yahay qaybo xafiisyo ah oo wixii muslimka wadankan qof kasta doonaya sadaqada meerka wax kasta warqada kasta xafiisyo ku yaala xagga hoose oo loogu shaqeeyo muslimiinta wadanka sidoo kale wuxuu ka kooban yahay masaajidka waxa ku dhex yaala dukaamo ka helisid ay nooc wax kasta aad
waa adigu waa magaalo yar oo dhammaystiran oo wax kasta uu qof ka heli karo weeyaan oo ku dhex yaala sidoo kale masaajidka view-giisa oo aragtaan waa view qurux badan sidoo kale xagga sare marka masaajidka laga soo sawiro view-giisa quruxda badan waa aragteen masaajidka haddeer sanadkan 2022 ayaa dib cusboonaysiin lagu sameeyey oo roogaga cusub la dhigay sidoo kale bannaanadan la dhigay bahalo fidsan oo sidoo kale qaybtan iga dambaysa arkaysiin albaabada xidhan yihiin waxaa loo furaa sida dadka ismehersanayo kale iyo maalinta jimcaha iyo labada ciidood bas ayaa qaybta loo furaa sidoo kale waxay nigi ilaaweynaa in sheego minaaradii dhararka badnayd 65 mitir ahayd ayaa maanta ku minaaradii u dheereed masaajidka aan ka arkaynay 65 kilomitir view-ga magaalada dhan sidoo kale masaajidku wuxuu leeyahay qaybo nasasho ah waqti iskaga qaadan kartid buuggaaga laptopkaaga wax kasta ku qaadan kartid xagga dambe ku sheekaysan kartaan jawi degan cagaar kuraasi macaan taalo bilaa buuq ah ayaa qaybta dambe ku taala hadda waxa subxaan ilaahay bareerigii qaybtaas oo dhan waa xafiisyada wali albaabadaas saddex xilli habeen ana ku beeganahay albaabadaas oo dhan waa qaybta xafiisyada oo lagu shaqeeyo dadka muslimiinta وارك كرتين دينا الباب دينا عصا هذا كله ولا library أو حلقة خرسته شو بدي جنب راقيله إفلو كا هل حبينا نغطي هذا الفيديو قصور معنا يا ما تدري حدود بيني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم.